ninkan waayeelka wuxuu 51 sano kadib ogaaday in xaaskiisa ay khiyaantay. waa garsoore Mareykan ah wuxuu ka soo muuqday muuqaal baraha bulshada uu ku baahiyay kaas oo dhaliyay hadalhayn badan. wuxuu ogaaday inuusan ahayn aabbaha dhabta ah ee labada wiil oo ay dhashay xaaskiisa oo da'doodu ay kala tahay 42 jir iyo 40 jir, isla markaana xaaskiisa ay ku khiyaantay. waxaan u baahanay inaan tijaabo caafimaad marno si aan u ogaano midka ugu habboon ee kalidiisa ugu deeqi kara walaalkay. waxaan xaqiiqsaday arrin la yaab leh, waana inaysan labaduba ahayn carruurtayda, waa ubadka ruux kale, ayuu yidhi. wuxuu hadalkiisa sii raaciyey, waxaan u malayn jiray mar walba inay u eg yihiin hooyadood, laakiin taa beddelkeeda waxay u muuq eg yihiin laga soo bilaabo tuubiistaha, boostoolaha iyo kan caanaha iibiya. alle ayaa og. waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado kuwa ay yihiin aabbayaasha dhabta ah. wuxuu tilmaamay inuu ka faa'iidaysan doono shaqadiisa dheer ee xagga qareennimada si uu dacwad uga gudbiyo iyaga, si buu yidhi aan u soo ceshto dhammaan lacagihii aan ku qarash gareeyey labada wiil. runtii way iga xanaajisay inay run ii sheegi kari weydo. malaha waan cafi lahaa ama waan diidi lahaa, alle ayaase og, ayuu yidhi. muuqaalka oo soconaya in ku dhow 3 daqiiqo ayaa laga dheehanayaa ninkan da'da ah oo murugo iyo niyad jab ay ka muuqato. niman yahow, waa inaad dhammaantiin martaan tijaabada aabbanimada. ma garan kartid aabbaha marka aad aragto ilmaha. tani waxay u baahan tahay faham heerar hidasiyadeed ah. waxaan goobjoog u ahaa kumanaan kiis oo la xiriira aabbanimada intii aan ka shaqaynayay garsoorka. 5 kiisba 4 ka mid ah markii uu ninku ku andacoodo inuusan ahayn aabbaha wuu ku saxnaa. tijaabada hidasidaha ayaa ah habka keliya ee tan si dhammaystiran loogu caddayn karo. waxaan aadayaa guriga, waxaana bilaabayaa diyaarinta warqadaha furiinka. sababta keliya aan kula joogi karo iyada waa carruurta iyo kuwa ay sii dhaleen, laakiin kulligood faracayga ma ahan. dadka ka faallooday ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay, si gaara markaanu soo qaadanno dadka islaamka ah. mid baa yidhi tani waa ilbaxnimada ay reer galbeedku rabaan inay ina baraan. mid kale ayaa yidhi ilaahay ayaa mahad iska leh, nimcada islaamka oo sharafteenni inoo xifdisay oo arrimihii nolosheenna inoo nidaamisay. mana dhici doonto khiyaano dhex marta bulshada muslimka ah oo aan ka ahayn kuwa ka leexday diintoodii. qof kale oo ka aragti dhiibta ayaa yidhi tani waa diintiinna oo aad rabtaan inaad inoogu keentaan waddamadeenna muslimka ah.